السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال وبولموج ميديا وبرتين halkan idin kasoo gudbiyo wararkii warbixinada ka dhacay dunida kuwooda ugu xiisaha weyn Ramadaan Kariim waa maalinimo Salaasaha taariikhdu tahay 19 bishii shanaad 2020 warkan waxaan ku bilaabaynaa wararka dibadda dalka Liibiya waxaa ka sii soconaya dagaalo qaraar oo u dhaxeeya jaranka goonigosadka ee raba inuu inqilaabo dowladda la aqoonsan yahay lagu magacaabo jarankaasi General Haftar ayaa waxaa la soo sheegayaa in uu dhabar jab xumi ku dhacay General Haftar iyadoo oo diyaaradaha droniska ee dalka Turkiga laga leeyahay ay waxyeello ba'an u geysteen dhammaan ciidamada ama xoogaga u lahaa fariisimaadkoodii waxaa la sheegayaa dowladda Liibiya in hadeer dhammaanba ay gacanta ku hayso goobihii ugu muhiimsanaa Haftar oo ugu dambeysay goobta ah xerada diyaaradaha ee ku taalay Tripoli duleedkeeda ayaa waxaa la sheegayaa in weerar shalay dhacay halkaasi ay kula wareegeen dowladdan la aqoonsan yahay haddaba waxaad moodaa jarankan jirka ah amaba kasoo horjeeda dowladdan la aqoonsan yahay ee doonayay inuu talada dalka faramaroojiyo oo ay dabada kasoo riixayaan wadamo shisheeye ugu horeeya Imaaraadka iyo Ruushka ayaa waxaa la sheegayaa in awoodoodii uu wiiqay diyaaradaha droniska ee Turkiga iyo ciidamada Turkiga oo si isdaba joog ah habeen iyo maalin u duqeynayay goobaha iyo fariisimaadka uu ku leeyahay dhammaan Liibiya Haftar ayaa waxaa la sheegayaa in gabi ahaanba haddii awoodiisii ay baaba'day waxaanu kaloo idiin haynaa daawadayaal haddaan u guda galno halka iyo cariga Yemen iyada oo ay xaaladda bini'aadanimo ee dalkaas Yemen ee ka sii daraysa ayaa waxaa la sheegayaa xoogaga Xuutiyiinta inay wadaan dagaal ay isaga caabinayaan huwanta uu hogaaminayo Sacuudiga ayaa waxaa la sheegayaa in dowladda iyaduna la aqoonsan yahay ee dalkaasi Yemen ee dhibaato ba'an ay u geysatay weeraro ee shalay ku qaaday saldhigyo ee leeyihiin Xuutiyiinta dhinaca kalena waxaa barbar socda xaalad amni amaba caafimaad oo aad u sii liidata ayaa dalka Yemen ka sii jirtay UN ayaa waxay ka soo saareen digniin aad u culus iyada oo xilligan coronavirus uu dunidu la daalaa dhacay ayaa waxa ay sheegeen in dhimashada Yemen ku imaan karta la qiyaasay inay ka bataan dhimashada hadeer dalalka reer Yurub iyo Mareykanka kadib markii Yemen ay noqotay meel dagaaladu aad u saameeyeen waxaan kula idiin haynaa wararkeena dibadda daawadayaal dalka magacaaba Albania caasimadiisa Tirana ayaa waxaa ka socda mudaharaadyo isdaba joog ah maalintii labaad mudaharaadyadaas oo ah kadib markii uu burburay tiyaatar ee lahayd dowladda amaba National Theatre loo yaqaan oo ku yaal caasimadaas Tirana markii uu ku yimi burbur ayaa dadweynaha halkaasi waxa ay sameeyeen dibadbaxyo aan kala go'o lahayn oo labadii maalmood ugu dambeeyay halka ka socday haddaan u gudubno daawadayaal dalka Malaysia ra'iisul wasaarihii hore Dr. Mahathir Mohamad ayaa waxaa la sheegayaa in lagaga adkaaday doorashooyinkii qabsoomay ayaa waxa uu si buuxda u diiday inuu la shaqeeyo ra'iisul wasaaraha cusub ee Muhatin Yaasiin shirkii uu baarlamaanka oo uu furay boqorka dalkaasi ayaa waxa uu u diray digniin labada dhinac inay ka digtoonaadaan isku dhac ka yimaada halkaasi waa Boolimoog Media tan iyo kulanti dambe oo xiiso leh